بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. أصحابي waxaad kusoo dhawaataan intro ku saabsan building material cost estimation labadeeda party gaar ahaan party 1ka. Marka party 1ka waxaan arki doonaa waxa uu ka kooban yahay, sidoo kale party 2ga waan arkaynaa. Marka party 1ka wuxuu ka kooban yahay, for example haddii aan furno building material cost estimation koorsada horta waxaad yaabaad ka faa'iidi doontaa ama aad ka baran doontaa waxaana si noqon doontaa saddexda qodob. Marka course contentiga waa kan ilaa ka kooban 6 section 1 2 3 4 5 6. marka waa part 1kii. For example haddaan continue learning aan dhahno waa kan part 1kii sectionskii uu ka koobnaa. marka section walba dhowr cashar baa hoos imanaya. For example section koowaad 2 cashar ka 4 ka 2 ka 4. marka for example haddii aan furno section kan koobaad waxaad aragtaa inuu ka kooban yahay introduction ku saabsan yani koorsada, sidoo kale ways to take of measurements qaababka aad measurementga ula soo bixlayd maxaan ahaye quantity iyo waxyaabahaas. sectionka markaad ka baxdo sectionka labaad oo kale muxuu noqonayaa sidaad aragto masonry stone cost estimation qaabkaad u xisaabin lahayd size-ka guriga galaya. marka ilaa 4 cashar baa hoos imanaya. waxaa kusoo hoos jira backfill cost estimation يعني عركابدي عرضي lagu celinay guriga qaabka lacageedii quantity-geeda loo xisaabiyo, yani suuqa sidaad uga dalbanayd inta gaariyada u baahan tahay. maxaan dhahay cashirkana qaabkan baa loo daawan doonaa. sectionka saddexaad oo kale concrete quantity, yani calculate quantity of structural concrete elements. structural elements-ka maxaan dhahay dhismuhu ka kooban yahay sida concrete elements-ka yani beam, column, slab, footing board, lintel, stair. lintel beamka kan maxaan dhahay beamka korka laga saaray albaabadii waxyaabahaas stairkii ayaan xisaabin doonaa. sectionkaas saddexaad ama afraad aan dhaho wuxuu ka koobnaan doonaa block work cost estimation, yani qaabkaad jaajuurka guriga aad u xisaabin lahayd. waxaa ku hoos jira maxaan dhahay albaabadii iyo daaqadihii iyo waxyaabahaas aad suuqa uga dalban lahayd, kaarigooga aad u xisaabin lahayd, volume of motor qaabkii sibirka loo dhexaysiiyo jaajuurka aad u xisaabin lahayd. assignment baa kusii xigi doona assignment 2. tile cost estimation, yani markii dhulka la dhigay iyo kii gidaarka wall tile. hard decor and skirting cost estimation, tilekii maxaa dhahay guriga lagu wareejinay hardcore-kii waxyaabahaas oo dhan. iyo sectionka ugu dambeeya koobsanaya concrete cost estimation, dhammaan qaabkaad volume walbad haysato aad yani u saar lahayd cementiga laga baahan yahay, carrada, sibirka, aggregate-ka iyo jayga iyo biyahaba. sidoo kale waxaan ku xisaabin doonaa qaabka talbiista iyo maxaa dhahay range-ga quantity-googa aad u xisaabin lahayd. paintiga isaga part 2ga amaba koorsada part 2geedan ku qaadan doonaa. mortarkan sidoo kale estimationkiisii. mortarka maxaa nidhi sibirka u dhexdhexeeya jaajuurka loo dhexaysiiyo qaabka lacagtiisa u xisaabin lahayd, yani sibirkii, carradii waxyaabahaas. concrete cost estimation midterm exam buu leeyahay. marka maxaan ugu kala qaybinaa laba party, laba shayba laba reason baa jira. reasonka ugu weyn wuxuu noqonayaa sababtan u kala maxaan dhahay u qaybina maxay tahay. labada reason aan u kala qaybina waxay noqonaysaa kow maadaama systemkanagu unan base garaysnayn mid kugula xisaabtami kara imtixaanadii, si aan markaa adigii aan yani maxaan dhahay aan manually aan anagu kugula xisaabtamno. laba qaybood baan u qaybinay si aad midterm examka markaad kasoo gudubto qaybtii kale aad u qaadanayso. talabaadna waxay noqonaysaa si ay kugu fududaato maxaan dhahay yani koorsada inaad fiideedii ay kugu kala fududaato, maadaama ay kugu adkaan karto inaad hal mar fiidi aad bixiso, si aad laba qaybood yani maxaan dhahay aad u kala gadan karto ama u kala garan karayso. marka maxaan dhahay koorsada waxay ka koobnaan doontaa inahaas. casharadu waa kuwaas slides iyo waxyaabahaas diyaarsan oo lagugu sharxi doonaa. maxaan dhahay itus oo taabsi yani qalin ama samuurad adoo hor fadhiyo kale adoo arki doontaa casharada aad u daawan doontaa. marka insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hadii aad rabto inaad insha Allah engineer ka adag inuu xisaabiyo maxaan dhahay wax walba client-igiisa weydiiyo ama dhismo markuu gacanta ku hayo intee maxaan dhahay imise gaari baa laga baahan yahay, sibir imsax baa laga baahan yahay, jaajuur imsax laga baahan yahay, talbiista maxaa iga baxay, waxaas oo dhan koorsadan insha Allah waxay noqon doontaa koorso ka caawin doonta waxyaabahaas oo dhan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. qaybta waxay noqon doontaa ama introgan wuxuu ku saabsanaan doonaa part 2. marka part 2 maxay ka koobnaan doontaa kow part 1 muxuu ahaa 4 saacadood iyo 39 minute ka koobnaa, kana 3 saac iyo maxaan dhahay 12 minute total marka la isku geeyo videoska aad ku daawan doonto durationkooga yani waqtigooga. marka for example haddaan part 2 eegno waxyaabaha uu ka kooban yahay waxyaabaha aad baran doonto iyo course contentiga isna wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr section 1 2 3 4 5 ama 5 chapter aan dhaho. for example haddii start learning aan dhahno on maxaan dhahay course contentiga aan eegno waxaad aragtaa 5taas
section ka kooban yahay section walba waxa hoos yimaada dhowr cashir marka imika hadii aan eegno section koobaad oo ka hadlaya painting cost estimation range-ga iyo waxyaabahaas kharashaadkiisa qaabka loo xisaabiyo laba cashir baa hoos yimaada cashir koobaad muxuu noqon doonaa lime and paint cost estimation nuuradii iyo range-gii saad u xisaabin lahayd maxaan dhahay quantity-gii part 1 ka lagu soo qaatay qaabka u xisaabin lahayd marka xagana cost-gii yani intaad carey ama meter square imsa daasood baa laga baahan yahay imsa maxaan dhahay kilo oo nuurada laga baahan yahay gypsum-tii iyo quartz-kii imsa caag baa laga baahan yahay imsa bag baa laga baahan yahay waxaas oo dhan baan ku baran doonaa maxaan dhahay casharada ugu horeeya ee part 2 haddii aan eegno ceiling material cost estimation yani bilfonkii materialska kala duwan ee loo isticmaalo qaabka u xisaabin lahayd haye section ka saddexaad formwork-gii oo actually noqonaya maxaan dhahay qaabkan u xisaabin lahayd formwork-ga maxaan dhahay elements-ka aan haysano sida beam haday noqoto column haday noqoto lintel beam waxaan jeedaa stair-kii waxyaabahaas oo dhan formwork-oogii ayaanu ku baran doonaa oo cashirku maxaan dhahay qaybtaas oo kale ka beam column kan stair-kii iyo slab-kii formwork-oogii ayaa la xisaabinaya marka waa shuttering-oogii xagana roof and carpentry work cost estimation oo kusoo qaadan doona ilaa 4 cashir baa hoos imanaya section-kan qaabka materialka maxaan dhahay roofka loo isticmaalo jiingada iyo waxyaabahaas aad u xisaabin lahayd truss-kii maxaan dhahay introduction ku saabsan truss-ka qaabka u xisaabin lahayd maxaan dhahay lacagiisii يعني maxaan dhahay truss-kii aad u kala jabin lahayd wixii uu ka koobnaa barliniskii eucalyptuskii waxyaabaha oo dhan qaabka aad u xisaabin lahayd barlinkii king postigii waxyaabahaas oo dhan rafterskii qaybta maxaan dhahay ugu dambaysa ama sectionka ugu dambeeya oo ka kooban ilaa 6 casharna maxay koobsan doontaa reinforcement cost estimation yani garaa'idka ama birtii guriga ka galaysay qaabka aad u xisaabin lahayd maxaan dhahay quantification aad ugu sameyn lahayd sidoo kalena aad kilo hadaa rabto kg for example weight oo kale yani inaad u bedesho hadaa rabto inaad kg ahaan ugu bedesho amaba de tirada lagaaga baahan yahay marka maxaan dhahay drawing-giga aad ogaato maxaad u baahan tahay qaabka u xisaabin lahayd marka ilaa dhowr cashir bay noqon doonaa waxaan ku arki doonaa slab rebar quantification cost estimation slabka birta galaysa footing-giga birta gasha columns-ka birta galaysa waxaan arki doonaa formulada la dhaho maxaan dhahay d square over 162 ee lagu xisaabiyo ama lagu soo saaro times length ee lagu soo saaro maxaan dhahay kg-ga birta qaabka u xisaabin lahayd yani formuladaas ay soo baxdo grade beam-kii iyo stirrup-kii marka ugu dambeysana final exam sidii aan kusoo sheegnay videogii hore ee intro ku saabsanaa part 1-ka waxaan u kala qaybinay si maxaan dhahay maadaama systemkan uuna ku saamaxayn inaan kula xisaabtano si part aad u kala qaadato sidoo kalena ay kugu fudaato inaad kala gadato marka koorsada wataas part 1-ku 4 saac bay ka kooban tahay part 2-guna 3 saac waa yani maxaan dhahay sheeko dhammaystiran camal oo yani qaabkii aad uga bixi lahayd su'aalaha ah marka lagu weydiiyo gurigan maxay ka galaya maxaan dhahay maxaan u baahanahay kaas oo waliba gaar ahaan material saad u xisaabin lahayd intaasoo gaari baa lagaga baahan yahay carro intaasoo gaari waxaad u baahan tahay dhagaxa intaasoo sibira lagaga baahan yahay maxaan dhahay intaasoo jaajuur aad u baahan tahay intaasoo jingadood baad u baahan tahay intaasoo geed koorsada marka waxay noqonaysaa koorsadii ku habooneyd maxaan dhahay ay kaa saacidi lahayd qaabkaad waxyaabaha aad u istimid garan lahayd marka maxaan dhahay koorsada waxay ka koobnaan doontaa maxaan dhahay itusoo itaabsi yani casharadii in lagu qaato qaab maxaan dhahay sidaad arkayseen videoga maxaan dhahay qaabkaas oo kale loo qorayo drawing-gii baa lagu soo diyaariyey drawing-gii baa lagu siinayaa maxaan dhahay maxaan dhahay pdfs baa lagu soo share garaynayaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh